madaxa suuqgeynta shirkadda adeegyada caymiska ee Takaful Insurance Liibaan Maxamed Xuseen ayaa sharaxay noocyada adeeg ee ay shirkaddu bixiso waxaanu yiri waayo ganacsadii haddii uu hanti ku waayo badii waxa laga yaabaa inuu habeenimo maalin gudaheed isku bedelo nin waxaysta iyo maxaysata ah marka caymisku bulshada wuxuu u faa'iido leeyahay qofkiibuu ku haynayaa stage-ka dhaqaale uu taagan yahay waana waxa la yiraahdaa dhaqaaluhu wuxuu ku socdaa laba taayir waa bangiyada iyo shirkadaha caymiska sidoo kale maarayaha guud ee shirkadda Takaful Insurance Umar Xaaji Xuseen Umar Xaashi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa warbaahinta u sharaxay sida ay shirkaddu u kortay iyo xaddiga macaamiisha ay hanatay muddadii ay jirtay waxaanu yiri runtii haddaanu nahay shirkadda caymiska ah ee Takaful Insurance of Africa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka carwada baananka iyo shirkadaha maaliyadaha ee dalka runtii waxaanu nahay shirkadda Takaful Insurance of Africa waa shirkaddii ugu horeysay وساد كور هيسان وشركة دوجوين وبقول كي بس سجالين معاميش دلكنا أي كحريين هذا جدا أنو بحنا وحكم ده عايمس كعافيماتك عايمس كجديدك عايمس كصعدالك عايمس كألعابها الررك يوحي لها المال مالجلينتا رمان وحنا الله شقينا هاي ده كل الدول دلك هذا يكون الدولة ده تهاي هذا يكون جارك تهاي وحن آد أنا أقول أحسنها هاي إن أنا كمدنا هاي ده كسيدة دو ولا شقية ولا ده صحافة ده waxay qoliyaha saaxiibada yiraahdaan saxaafadda dadka maad uga dhowdahay ugama dhawi laakiin waan ka jecelahay dadka kale waan u simanahay laakiin waxaan jecelahay in saxaafadda iyo shirkaduhu ay wada koraan aadna waan idinku bogaadinayaa idinka fariinta Soomaaliland meel weyn ba gaarsiinaya annaguna mishiinka ama deynabada dhabarkiina ku xidhan ee idin la gaarsiinaysa inaan noqono diyaar baan nahay caymiskuna waxa weeyaan waa iskaashi waa inaynu iskaashano bulsho ahaan dad ahaan ummad ahaan dal ahaan sidii aynu horumar u samayn lahayn hadday tahay dhinac dhaqaale hadday tahay dhinac siyaasadeed iyo hadday tahay dhinac caafimaad iyo qaybaha kale bulshadaba